إلهنا مآد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. inaan ilaahay u dhowaanno oon aakhiradeenna u diyaar garowno oo adduunyadan aan ka qaadanna diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiradii weyni ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey. calamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey. laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen. sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen. laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhowla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo, uu dhimashada xasuusiyo, uu aakhirada xasuusiyo. innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan, zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa, aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo, inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo. waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay. waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa. nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya. su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya. haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. oo su-aasha qabriga waa maxay? waa saddexdaas su'aalood weeyaan. man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. laba malag baa u iman doonta alfataanaan, deedna way fadhiisinayaan qofka. saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan.
hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح ذا سؤالات قبرك قفل بلقوة دينيو إلهي بقفك مؤمنك كسيق دونه إلهي بس جوابته حليشين دونه ولا ليال إلهي نهي نقصه الله نقصه الله نور دبيريو صدح ذا سؤالات بقفك سلوي دين دونه مركا مؤمنك أدوية الدشيد إلهي كقبقى يي إلهي ما أركن لكن رماه مخلوقا كون موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما أركا دونك انت اللي جوغو جركا دركيسا لكن روح دا لما أركو الدوية دا دركيسا لكن آخرة دا لما أركو انت دونك اللي جوغو منافع دا لعقتا دركيسا لكن منفعات دا الصلاة دي منفعات دا الثواب كما أركيسد وغيب آخرة تالقو قوتو سندونا شيء كما أنت مشاهدات كإنه موغدا ayaa hadhowt wala noqon doona muqayyabaat wax ka qarsoomay buu noqon doona shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doona wax hortaada imaadod aragto ayuu noqon doona maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay noo muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghida'aka fabasaruka al-yawma hadid waxa la oran doona daahi xijaab ayaa ka saarna noloshan laakiin maanta daahi xijaabkii ka saarna waan ka qaadnay aragaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax ka qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqon doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi al-laylu wan-nahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may sead u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamul qayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey
beertu ima rabbaynayn ilaahay bay rabbaynayay dawladdu ima rabbaynayn ilaahay bay rabbaynayay xooluhu ima rabbaynayn ilaahay bay rabbaynayay anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulli alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato leeyahay war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabo markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer Djibouti waxay yidhaahdaan letreedkii baan ku noolahay letreedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليس شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتم أضاع دكان كاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكائمنا يا وأين أتقرت ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبرية متيستي وإلهي ويان كالرجاء متيستي وإلهي ويان كعبسة متيستي وإلهي ويان كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بعد كليجي وشهو إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قال